kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda dalka Kenya oo sheegtay inaysan qorsheynaynin inay Hargeysa safaarad ay ka furtaan militariga Soomaaliya oo la wareegay deegaano hoos degmada Xardheer dowladda Soomaaliya oo heshay xog ku saabsan al-shabaab iyo magacyada dadka u qaabilsan dhinaca dhaqaalaha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo guddi u magacaabay diyaarinta wada xaajoodka arrimaha federaaleynta Ruushka oo duqeymo hor leh ka geystay dalka Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka haddii aan ku bilowno wasiirka arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee dalka Kenya ayaa sheegay in dalkiisa uusan qorsheynaynin in uu safaarad uu ka furto Somaliland waxaanu rabnaa in aanu cadeyno in Kenya aysan qorshaha ugu jirin in ay safaarad ka samaysato Hargeysa sida lagu sheegayo baraha bulshada qaarkood iyo kuwa sida khaldan u sheegayaba sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya wuxuu intaasi sii raaciyay in Kenya safaarad ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee Kenya ay tahay in ay ilaaliso xiriirka walaaltinimo ee labada dal hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ka soo yeeray ayaa ku soo beegmaya xilli la baahiyay warar sheegaya in Kenya ay safaarad rasmi ah ay ka furanayso magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland wararka ka imaanaya gobolka Mudug ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliya ay saaka galeen tuulada Ceel Hoor oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jirta degmada Xardheer ee gobolka Mudug ciidanka qabsaday Ceel Hoor ayaa ka yimid wadada xeebta ee ka timaada degmada Hobyo tagtana degmada Xardheer ma jiro wax iska horimaada oo la soo wariyay iyadoo oo kooxdii horay gacanta ugu haysay Ceel Hoor ay al-shabaab ay isaga tageen tuulada ciidanka dawladda ayaa sidoo kale dhowr jiho oo kale uga sii dhawaanaya magaalada xeebeedka Xardheer oo al-shabaab ay maamuleysay tan iyo sanadkii 2010 waxaana saldhig ay u ahayd kooxdan al-shabaab oo fadhiisina ballaaran ku lahaa degmada Xardheer madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballan qaaday in uu faahfaahin uu ka bixin doono tobaneeyo ka mid ah xisaabaadka al-shabaab ee bangiyada iyo lacagaha telefoonada loo adeegsado oo dawladdiisu ay xanibtay madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbad u jeedinayay banaanbaxayaal looga soo horjeedo al-shabaab oo ka dhacay Muqdisho ayaa uga digay shacabka ku nool caasimadda in ay bixiyaan waxa uu ugu yeeray lacaga baad ah oo ay siiyaan kooxda lacagaha malaayiinta ayaa xisaabaadka iyo telefoonada al-shabaab ku xayiran maantadan aan idinla hadlayo ayuu yiri madaxweynaha oo la hadlayay boqolaal dadka reer Muqdisho dawladdu waxa ay soo bandhigi doontaa ayuu ku daray hadalkiisa dadkaasi magacyadooda ay sheegto iyo waliba bangiyada ay akoonadaasi ka furan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo boqolaal ka tirsan shacabka Muqdisho ayaa ka qayb galay banaanbaxyo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagnay telefoonno aan weydiisanay inay xogta nagu la soo wadaagaan in ka badan 3,000 oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa la soo xiriiray dawladda Soomaaliya kuwaas oo u soo gudbiyay xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoogga ah uga aruursanaysa dadka Soomaaliyeed hawshaas iyo fariimahaas dadka Soomaaliyeed ka yimid oo wali ku jira marxalad kala saaris ah natiijada horodhaca ah waxay suurto gelisay in la xayiro 250 account oo ka mid ah kuwa dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay kor joogteeyaan waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka Soomaaliyeed ka yimid uu suurto geliyay in la xanibo 70 telefoon oo ah kuwa loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay xayiraad lagu sameeyay waxa wali socda qorshaha kala saarista macluumaadka oo wali maraaxil badan ay u dhiman tahay imankana akhbaraadka dhinaca dibadda gantaalada Ruushka ayaa ku dhacay magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv waxayna burburiyeen xarumo muhiim ah wariyaal ku sugan caasimadda ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen qaraxyo waaweyn halka saraakiisha ciidamaduna ugu baaqayeen dadka deegaanka in ay guryahooda ay joogaan gudoomiyaha gobolka Kharkiv ayaa sheegay in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay isku dayayaan in ay wax ka qabtaan xarumaha tamarta kadib markii halkaasi ay ku dhaceen 2 gantaal saraakiishuna waxa ay ka digeen duqeymo hor leh
in ay maanta ay geysan karaan diyaaradaha Ruushka. warkii aad kala socoteen janalka galka wararka daawadayaal waa naga intaas. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay barnaamijka Noolay Garee channelkana subscribe noo saar haddii aad horey noo joogtana barnaamijka noo sii share garee sidoo dad badan oo gaara mahadsan.